السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حذيفة حاجية channel كداون سانو وحذيفة فلوجز كسر هذا channel كنا فضلا هذا channel كعصب تاي سبسكرايب نصار فيديو قدرت كشيدنا لايك نصار بدو ما سنتين صاحب يال سودو هذا مركله إن سأل الله أنه قبرتين إن مالميو دم ببرنامج جديد وحاول سؤاله كسابسن برشدينا feedback بدن بان هلني ضد بدن با كسو هذلي بيوجه لين ضدكو إن وحنا سكودا إنه مركب مانتا كي هراء كل مذا عم بكو يعني كي بوس كو تاجنا برشة ما تنو تاجن إن صوب بندقنو هدو الله هو دليل هذا إن شاء الله سودو هذا مركله كوا عصب كوا هروق سيجري كوا كصوب بيردونا دمنتي من سودوينيا ما أنت عندي بقول نقطة واحد كود هذا إن هذا كهر برنامج كيني كان كهري وحيابها السببة فرينكا لما نياش عنكا إن وصل جرني سببه ضد feedback بدن بيكسو بحيين وعنيجي ضد برنامج جديد كسو هذا الني قاب كده كوكسو في العليين ما أنت نوع حربينا ضد كسؤاله دلنيرتها ولي بدلنيرته خصوصية برنامج كني ما أنت واحد كهذا دونا محاسبة حديدك بربرك حديدك محاسبة إن وحديدك بربرة من والبوحين ورقنا حديد مدة سعودي أو لبا مدة دير أو تاريخ للسعودي أو بربرة محيطها سببته maxaa sababa in labada qof wiil iyo gabadh xiriir iyagoo wada sameynay wada socda oo midkood daacad u hayn xiriirka waqtiga ay wadaan maxay tahay sababtu maxaa kalifaya maxaa sababa su'aalahayga aad u badan yihiin maxaa sababa in ay daacad u noqon waayaan xiriirka labadooda midkood maxay se ku dhacdaa marka la gaadho xilliga guurka inuu midkood isbedelo waxa soo dhan waxaan u baahanahay in laga soo jawaabo caadiyan nolosheenu waxay nahay dad muslina boqolkiiba 90 hadda waxa la leeyahay xidhiidhadeen waxa u badan yihiin been la isma aamini dhalinyartii way kala aamin baxeen maxay tahay marka waxaynu kalifay inaan been sheegno in ma ba jirtaba been gabigeedu iyada been ka samaysanba waxa weeyaan waxay leedahay gabadha been ku soo xirigelay runa ku dhaq gabdhihiina waqtigan la joogo oo fikireen waxay samaysteen ma beentaas oo kala beenta jawaab ka bixinaysa waxay samaysteen ragga makeup ku soo xirigelay runa ku dhaq nolosha ka samaysan khiyaaligaas iyo kan gali iyo halkan ka qabiya halkan ka qabo ma la dhihi karaa way raagaysaa oo nolol yani si waaraysa sababta se ma dhihi karnaa inay tahay inay ka dambeysaba khiyaaligan iyo beentan been ku soo xirigelay makeup ku soo xirigelay qarracdani in ay tahay sababta u horseeda burburka lamaanayaasha su'aasheedu maanta waxay saaran tahay sababta in la isku soo sheego waad mahadsantihiin daawashadiina oo ku mahadsantihiin waxaan rajeynayaa bal inaad jawaabaha nagu soo qancinaysaan insha Allah wixii fikirkiina aad nala soo wadaagtaan waxaan isla eegi doonaa bal fikirka ay dadku ka qabaan su'aashaas insha Allah waan commentiga noogu soo qora aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh